السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين هنا كوكين أم بيوتي أصحابي وحا إذن ليهاي سو دواada dhammaantiin waa idin wada salaamay meel alla meeshaad joogtiin intay maalin u tahay intay habeen u tahay walaalaha dhammaantiin waxaan jeclaaday arrin yar inaa idinla wadaago oo hadda ka hor dhacday oo run ah arrintaas waxay aad ugu sii saabsan tahay gabdhaha jooga East Africa oo Soomaaliyeed gabdhan waxaa idin leeyahay arrintan dhegtiina isiya ma la dhihi jiray mise dhegtiina ii soo jeediya si fiican hal ii dhageysto gabdho waxaa idinka codsanayaa hadduu ilaahay idmo ina ilmihiina aad u ilaashatiin insha allahu tacaala hadda ka hor anigoo joogo East Africa ayaa waxay dhacday gabar inay wiilkeeda cuntay oo 7 maalmood dhalan gabadhaas aroos cusub ay ahayd ilmaheedu curaday markaas dhashay marka ayada iyo ninkeedu isla joogo ayaa albaabka loo soo qaraacay dhalinyaro kale u soo qaraacday markaas ay ku dhaheen hebelo waxaan rabnaa inaa banooni nala soo ciyaartay kaalina raac wuu raacay wiilkii marka wuxuu dhahay albaabkii markaan jugsiye hal qolayna degan yihiin cidda waxayna degan yihiin meel tuule ah albaabkii markuu jag soo siiyay ayaa wuxuu dhahay waxaan maqlay qaqaq cunugi inuu dhaho kaleenta yani ilmaha maaragtay hal mar markay kor u qeyliyaan camal oo haddana oohinta isku cishtaan ama ilmaha badanaa waxay u badan yihiin oo kale markay meel ka dhacaan oo kaleenta mise ay naxaan oo kale mise waxa saas ku dhacdo oo kaleenta hooyooyinka badanaa way yaqaaniin ilmaha qeylada noocaas markay qeyliyaan cunugi wuxuu dhahay wuu aamusay waxaan u maleeyay wuxuu dhahay inuu soo sasay mise uu ka dhacay yani adi arrin fududaan ka dhigta waan iska sii tegay dhallinyaradeedaan iska raacay bas wuxuu dhahay mar dambaan soo laabtay albaabkiyan wuxuu yiri soo qaraacay albaabkii way iga furtay markaan gabadhiyo afkii gacmaha iyo dhiig ku leh subxaanallah waa arrin aad u xanuun badan gabadhii marka wuxuu dhahay haddaan sii fiiriyo cunugii cunaysaa wuu qayliyey gadaalo u orday dhalinyaradii iyo dariskii wixii dhanaa iskugu imaadeen waxaa la arkay booliiskaa loo yeeray booliiskaa imaaday gabadhii waxay arkeen cunugeedii oo istuul u kor saaran oo sida cuntadaba waaba yani baashaal caadi ah waxay ayada dhashay subxaanallah ilaahu intii muslim ah ha ku keenin iyo intii bini aadan eeba waa arrin aad u xanuun badan adiga askartii hadday imaatay la qabtay asagiyaa la waraystay wuxuu dhahay war aniga ma xanuunaa ku ogeyd yani ma waxaa ku ogeyd may ani wuxuu dhahay gabadhan waa isqabnay muddo yaraan yani intuu ilmaha caloosh ku jiraaba isqabnay laakiin wax dhib ena kuma ogeen hayesaan miyaha maxaa dhacay he wax dhacayna ma sheegi kari laakiin markaan sii baxay qiiqaa maqlay ma soo laabanin dhegtaan taagay shanqar dambaa maqli waayo waan iska tegay markaan soo laabtayna saana u imaaday haye gabadhii waa la kaxeeyey adiga stationkaa la geeyey waa la wareystay waxay tiri aniga qabiil hebel ayaan ahay way yaqaaniin dadka East Africa ka imaaday dad yani anaga Soomaali haddaan nahay dadaa yani iskaga xaxantaa inay dadka ayaga naftigooda kuwa qaar ay isdhahaan way isqariyaan iyo waxaas ma fahanta oo dadkay cunaan oo waa dhaqankooda oo waxaasoo kuwa qaar ay waxaas ku xantaan dadkaas adiga war maxaa nigaga daalinaa asxaabay gabadhii waa la wareystay waxay tiri aniga reer hebelaan ahay dhaqan waxaan u leenahay curadkeena inaa cunno haddii curadka la cuni waayana wax kalaaba dhacaayaba arrimo kalaaba imaanayo warbas adiga markii gabadhiina waa la xiray wiilkiina waxaa lagu yiri de maxaa dhahaye maxaa adiga wuxuu dhahay aniga cunugeedii ee dhashay haddeeba cuntay aniga yani ilaahaba i badbaadiyoo kaleento ay cuni lahayd wayba heli karta sooma asagana inay cunto marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed inta afka aan ku hadlaa fahmayso iyo inta muslimiinta aba waxaan idin leeyahay ilaashada ilmihiina yani ilmihiina aad u ilaashada markasta waxaa maqlaa ilmaa la waayay ilmaa maqan ilmaha la waaynayo la iskama waynin ilmaha dan unaa loo qaatay waxaa laga yaabaa dadka noocaas ah inay joogaan iska ilaaliya dadka guryaha ka shaqeeya aad iskaga ilaaliya qof aadan garanaynin gurigaada ha u keenin inuu ka shaqeeyo marka caruur leedahay adiga weynaaba khatar naftaada gelin kartid haddaa waxaadan garanaynin guriga soo gashato laakiin adiga weyn qof weynaaba tahay ma ogtahay naftaada waxaa rabta ku sameey adaa mas-uulka ah laakiin caruurta waa masaakiin waajibkeedana anaguna saaran yahay marka waalidiinta ilmaha aad waa inaa u ilaalisiin hooyooyinka ilmihiina aad u ilaaliya naag madax duuban ood sharci ka haynin oo kuu soo gashay gurigii ku dhahays waa kaaga shaqeynaa ka waran hadday ilmaha adeerka sii cunto
is ilaaliya waxaa idin leeyahay subscribe like and share please walaalaha yaa la iga iloobin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu